السلام عليكم أصحابتي قالي وايد سلام مالك سادني دعالة كل جوتان ولا شيء نستاهل يوتيوب كايل سعتوا كوين يستاهل ولا القال هذا نوع عصب تاي لاقي نصار سبسكرايب ينصار شير قرأ أصحابتها فاميلي قال اللي بدك ما أنتو حروا وحي إنه وذا قصة داسن وحي كسعتا ويل كمان سوشيال أيانتان ما أنتي ديني أيانتا سوشيال ميديا سيد بأن وقبصتي wiilka waxaa la yiraahdaa Cameron Heron da'diisu waa 21 sano wuxuu dhashay 1999 aabii waxaa la yiraahdaa Chris Heron hooyadiis waxaa la yiraahdaa Sharon Heron laakiin waxaa la yiraahdaa Tristan Heron familiga reer Heron baa la yiraahdaa soo asxaabteeda qaaliga waxa maxaan ku raahdaa ahaayeen labada wiil hadda hal mar inoo dul maro wiilal caawiyo dadka masaakiinka dad walbo jaarka familiga wax walba dad caawiyo ahaayeen labada wiil kaniisada inta tagaan xatee maxaan ku raahdaa dadka caawin jireen wiilkan saaxiibkiisa waxaa la yiraahdaa saaxiibkiisa isku ruux ay yihiin waxaa la yiraahdaa John waxa waaye maxaan ku John Biden waxaa la yiraahdaa saaxiibka oo Cameron Heron meesha uu John joogo Cameron uu joogo meesha Cameron joogo Heron uu jooga so waxa waaye Heron uu joogo kala John uu jooga iyo maxaan ku Cameron Heron يعني Heron waxa waaye magaca oo naanista waaye so asxaabteeda qaaliga labadan wiil waxay ahaayeen laba wiil oo saaxiibo ah sida hore ku soo sheegay gabadha qisadan ku socotan waxa la yiraahdaa Jessica ninkeedana waxa la yiraahdaa David gabadhooda yartan waxa la yiraahdaa Lillian Jessica iyo David waxay isku barteen iskuulka oo maxaan ku raadin jaamacadda miya isku barteen waxayna iskuursadeen 2016kii okay guurkooda kadib gabadhooda yarta qurux badan baa u dhalatay gabadhooda yartan waxay jirtaa sanad iyo 9 bilood gabadhan qisadooda sidaas ay ku dul maray wadanka America meel la yiraahdo xaafada area la yiraahdo Sostamba magac waa qaldoya Sostamba in la yiraahdo jeclahay Sostamba meel la yiraahdo ayay yimaadeen oo maxaan ku raahdaa Cameron iyo walaalkiis guri ay ka iibsadeen gurigana waxa laga baxshay 1.4 million USA dollar laga bixiyay ma fahanteen so gabadha meesha martiba ku ahayd way timiday ninkeedana wuxuu ahaa pilot maxaan ku raahdaa wuxuu pilot noqdo meesha shahaadada iyo tababarkii wixii dib u dhamaadeen meesha ay wax ka soo doontay gabadhan adeerkeeda meesha ku casuumay wiilkan maxaan ku yiraahdaa la yiraahdo Cameron maalin maalmaha kamid ah asagii saaxiibkiisa horta wuxuu dhammeeyay jaamacad high school ayuu dhammeeyay high school markuu dhammeeyay hadii ahaan waxa lagu keenay gaari ma tahay oo qaali ah very expensive gaari ah ayaa loo keenay because of hooyadiisa iyo aabihiisa waa dad lacag leh hooyadiis waxay u shaqeynaysaa dawladda aabihiisna wuxuu ahaa nin hantiile ah oo maxaan ku yiraahdaa u shaqeeyo TV-da caalamkan maxaan ku raahdaa meel buu kala hayaa la yiri wariyana uu ahaa yani wariyaan dhihnay idaacadahan uu ka shaqeynay okay gabadha maalin maalmaha kamid ah ayadoo waxa meesha ka soo socoto yani markii uu qalin jabiyay gaariga la siiyay after 3 days ayuu shilkan dhacaya okay shilka wuxuu dhacay 3 days soomahan iyadoo meesha maxaan ku raahdaa way socotay oo maxaan ku raahdaa meesha highway-ga wadada ayay u soo aaday in ay ku qaadato maxaan ku yiraahdaa hawo ayadii canugteeda yarta ah Cameron iyo walaalkiisa iyo saaxiibkood John waxay soo aadeen gymka gaariga Cameron iyo walaalkiis gaarigooda ay saarnayeen John gaarigiisa ayuu watay markii samaha faraha la soo gaaray oo dadka meesha markay goynayaan uu istaaga soomahan marka Cameron wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan galno tartan ah qofkii maanta guuleysto maxaan ku wax walba uu jecel yahay loo sameeyaa okay John wuxuu yiri okay diyaar waay sidii ay tartan gulay markuu cagaarka fulmay saacadii 100 ayay gaarsiiyeen 100 ayay ku wadeen marka John wuxuu arkay gabadhan oo meel ka noqoto aanan joogin oo soo socoto gaariga dhanka kale ayuu u leexiyay Cameron leexintii saaxiibkiisa uu leexanay ayuu arkay dhanka kale uga leexay isdhahay shilkii sidaas ayuu ku dhacay gaariga xitaa markaas wuxuu gaarsiiyay 100 ku wada Soomaa 67 ayuu gaarsiiyay soo asxaabta qaali inay fahanteen rajeynaya hadalkan daabobsiino karaal noqdo xogo hadalkii iska fidiya malena so marka qisadan waxay dhacday 2018kii ayay dhacday markaasna wuxuu jiray 18 sano John wuxuu jiray 17 sano waa fahanteen Soomaa markuu shilka dhacay maama ay arkaysay maamadii wiilka ayay wacday
way ka qaban weysay uu ka qaban waay because waqti uu ku qabto ma joogo booliis meeshii yimid booliis waxaas ay imaadeen oo waa la qabtay maamadeedii la wacay maamadii waxay wacday hawarta Sherin wacday waxay ku tiri gaariga wiilka gaari u eg ayaa shil halkan ku galay bal soo bax ad aragtide marka maamadii way soo baxday meesha marka timiday wiil labadeedii wiil oo garbaduub loo xiray ayaa aragtay iyo wiilkii saaxiibkooda ahay so maxkamadii la geeyay lacag 60,000 oo milyan 60,000 oo dollar ayaa lagu soo damaanad qaaday laanu markaas wuu yaraa so ilaa habtuna buu yar yahay wiilka so marka wiilkii maxaan ku raahdaa sidaas lagu soo damaanad qaaday maxkamadan waxay dhacday hadda sanadkan 8 bisha afraad 2021 ayaa maxkamadeyntii dhacday inkastoo uu codsaday maxaan ku raahdaa Jessica ninkeeda in lagu xukumo 30 sano iyo ka badanbo because wuxuu yiri nolosheedii dhan gabadheeda qurux badneed iyo maxaan ku raahdaa xaaskayga dunida u jeclaa ay dunidan dhaafsiiyay wiilkan in xukunka lagu adkeeyo doonaya so waxaa dhacday in lagu xukumo 24 sano daadiisu imka waxay jirtaa 22 sano wallahi cimri waay ilaahu rabbiyo cimri waxaan ka magan galay xabsi iyo maxaan ku raahdaa gacan ku dhiglanimo dhamaanteen ba Allahumma aamin dhaha asxaabta so marka wiilkii kale John la dhahay waxa lagu xukumay 6 sano kadibna 15 sano ayaa dabagal lagu hayn doona haduu Ilaahay yiraahdo waa markaadii 2026 meelaas ay noqonaysaa qisada marka sidaas ayaa u dhacday asxaabteeda qaaliga xitaa waxay qabsadeen maamadii iyo aabihii waxay qabsadeen ninka la dhahayo garsooraha ama qaadiga ayay ku dhahan si maskaxdiisana wiilkeena 24 sano ugu xukuntay oo raafana qaadanayna oo sana yeelana laakiin ruuxdii la sheegay 24 sano wiilka uma qalmo kaas oo yar yahay ilaa abtuna 22 sano wallahi aad buu yar yahay maxkamadan waxa dib loogu dhigay in uu qaangaaro hal maalin haday kugu darsanto 18 sano reer galbeedka waxay yaqaanaan ina qaangaarto adi ismaamulaysid marka maxaan ku raahdaa qisadii oo kooban ku jirto waatana asxaabteeda qaaliga hadii aad wax ka fahanteen waxa idin leeyahay commentiga isku soo qora maanta istaahil qisada markii ugu horeyso wax soo jeedinaysa igaraal noqdo hadaa wax qalday hadaa wax ka fiican hadaa magac meesha qalday hadaa wiilish magacooda qalday soo ugu qaato waxaan leeyahay like subscribe share comment inta waxagina qaasatan like saar videoga like tiin way hooseysa dadkaygiyo maxaa ku dhacay